deegaanka Soomaalida ayaa ah deegaan hodan ku ah kheyraadka dabiiciga haday tahay xoolaha iyo dhirta la manfaacadsadaba waxa kale oo inta dheer oo uu deegaanku leeyahay webiyo waaweyn oo hoy u ah kheyraadka dunida inteeda kala ugu qaalisan waa kalluunka balse deegaan ahaan ka faa'iideysigiisu aanay weli fari ka qodnayn walow ay jiraan dad iyagu isku dayay inay ka faa'iideystaan kalluumaysigan ayaa waxa ka hor yimiday caqabada ay ka mid yihiin qalabka lagu kalluumaystay casriga ah oo ay awood u waayeen haddaba xafiiska horumarinta kheyraadka xoolaha iyo reer guuraaga dawladda deegaanka Soomaalida ayaa muddooyinkan dambe xooga saaray sidii horumarin lahaa habka casriga ee kalluumaysiga isagoo oo xafiisku degmooyinka ay webiyadu maraan ka dhisay iskaashatooyin ka faa'iideysa isla markaana gaarsiiyay agab ka kalluumaysiga u fududeynaya oo isugu jira dooyo gawaadhida iyo agabyo kale oo la xidhiidha habka kalluumaysiga wuxuuna xafiisku bilaabay inuu wacyigelin iyo tababaro uu siiyo iskaashatooyinka iyo bulshada si faan looga siiyo ahmiyadda uu dhaqaale ahaan iyo nolol ahaanba bulshada u leeyahay kheyraadka kalluunku bulshada deegaanka Soomaalida in ku dhow 85% waa xoolo dhaqato noloshooduna waxay ku tiirsan tahay waxyaabaha ka yimaada dhanka xoolaha laakiin waxa xusid mudan xoolaha aan leenahay ama kheyraadka xoolaha dhulkeena ku jira ma aha oo kaliya xoolaha nool inagu aan dhaqano ee goololooda iyo ariga waxaa jira kheyraad kale oo iyaga laftooda ah hanti ah oo nool isla markaana faa'iidooyin badan inoo leh haddii aan sideeta uga faa'iideysano kuwaas oo weli ka faa'iideysigooda aysan bulshadeenu aad ugu baraarugsanayn waxaa ka mid ah kheyraadka kalluunka ka mid ah sida loo ogyahay deegaankeena waxaa mara webiyaal afar ah webiyadaas waxaa ku nool kheyraadka kalluunka oo ku jira oo yaani ay hoy u tahay biyo ay hoyishan kalluunka marka kalluunka sabab yaraatay deegaanka bulshadeena kama aysan faa'iideysanin iyadoo la og yahay kalluunku in uu leeyahay faa'iidooyin badan oo aysan lahayn xoolaha marka sidaa darteed xafiiskan horumarinta kheyraadka xoolaha waxa uu baryahan dambe ku talagalay in ka faa'iideysiga dhanka kalluunka ee bulshadeena kor loo qaado wacyiga ay bulshadu ka qabto in hilibka kalluunka la isticmaalo kor loo qaado waxa la asaasay iskaashatooyinkaas oo ka howlgala webiyadeena deegaanka ku yaal haddii mid kamid ah soo qaado waxaa kamid ah iskaashatada horumarinta kalluunka ee Shabeelle waxa weeye kalluunka isaga la fahantiisa markii aan ka hadalno wax noole ilaahay ugu talagalay way in la quuto oo la cuno adduunka ilaahay u keenay sida la og yahay xataa noole u baahan in la gowraco ama la xalaaleeyo ma aha oo noole sidiisa xalaal ku away kalluunku faa'iidooyin badan buu leeyahay oo maaragtay uu dheer yahay hilibka xoolaha hilibka kalluunka faa'iidooyinka uu dheer yahay dhanka xoolaha waxaa kamid ah dheefshiidka oo kaleeto culays ma aha si yar baa inaga digestive systemkeena uu dheefshiidi karaa talabaad kalluunka waxaa ku yar waxyaabahan duxda ama subaga oo inta badan dhiba dadka malaha ama aad bay ugu yartahay kalluunku sida loo ogyahay wuxuu ka jaban yahay oo ka raqiisan yahay xoolaha kale inaad dhaqdo raacdo baraabaha ka ilaaliso la joogtaba u baahan yahay laakiin kalluunku wuxuu u baahan yahay oo kaliya aaladii aad ku ugaaran lahayd inaad la tagto biyaha isla markaana aad soo qabsato waa wax ku diyaarsano soo qabsanayso way sidoo kale kalluunku hilibkiisa waxa uu leeyahay fiitamiinaad fara badan oo aan xoolaha inta badan hilibkooda aan ku badnayn ama maaragtay enzyme ama fatty acid tusaale ahaan omega 3 fatty acid ka la yiraahdo yani kalluunku ku badan yahay wax badan buuna uu daawo ka yahay wuxuu yareeyaa sunta jirkeena uu yareeyaa sababtoo falgalkan faraha badan iyo reactionada jirkeena ka dhacaya waxa ka dhasha maaragtay wasakh badan ka dhalata marka wasakhdaas iyada abay yareysaa xoolaha kale kuma badna sidoo kale vitamin D oo kale rich buu ku yahay kalluunku runtii waxdani waxay u aasan tahay in bulshada xoolo dhaqatada ay hormariso khaasatan wax soo saarka xoolaha inay kor u qaado waxdan waxay si khaas ah focus ku saartaa ama target ku saartaa in wax soo saarka xoolaha kor loo qaado iyadoo marka waxdu ay isticmaalayso farsamooyinka casriga si
wax soo saarka xoolaha ama caanaha ahaado ama kun ahaado ama hilib ahaadee kor loo qaado tusaale ahaan in dhaqashada casriga ee digaaga dadkeena aan barno annagoo adeegsanayna farsamooyin casri ah iyo tubac casri ah si markaasi wax soo saarka digaaga kor u qaado sidoo kale waxdu waxay iyadana u aasan tahay ama targetkeedu yahay in nidaamka casriga ee kalluumaysiga dadkeena inay barto saad ogtihiin bawiyo badan baan leenahay weli aan laga faa'iidaysanin in khayraadka dihinaya kalluunka si looga faa'iidaysan lahaa iyadoo loo marayo farsamooyin casri ah loona jabin lahaa fikradda qaldan ee dadka kalluunka aaminsan yihiin sidoo kale dhaqashada casriga ee xoolaha in dadkeena aan barro nidaamka casriga ee xoolaha loo dhaqdo saad ogtihiin xoolaheena wax soo saarkooda aad buu liitaa dadku xooluhu waxay u dhaqdaan tiro tayo uma dhaqdaan in dadkii aan barno in xoolaha tayo in loo dhaqdo inay ka fiican tahay in tiro loo dhaqdo in xoolaheena aan tayayno annagoo markaa isticmaalayno farsamooyin casri ah iyo tababaro aan ku korina garaadka aqooneed halkaasoo xoolaha caanahooda aan gaarsiinayno 12 litir ilaa 25 litir sidoo kale waxay target ka saartaa inay horumariso wax soo saarka malabka saad ogtihiin deegaankeena khayraad badan buu leeyahay waa rangeland area oo lagu qiyaasaa deegaanka Ethiopia la eego waxaana deegaanka ku fadhiyo dhul ballaaran oo rangelandiga dhulka rangelandiga inta badan waxa aad ugu badan shinnida aad ugu badan malabka khayraadka shinnida kan faa'iidsan laakiin sidoo kale iyadana inaan kor qaadno wax soo saarka iyo fahanka shinnida iyadoo xafiiska soo adeegsanayo farsamooyinka casriga ee sahlaya dhaqashada casriga ee shinnida iyadana targetka anaga weeyaan sidoo kale waxa kale iyadana muhiim ah waxdu waxay culays saartaa harkaysaamaha Ethiopia markaan eegno waxaan nahay deegaanada waxaan ka mid nahay ugu xoolo badan Ethiopia haddana markaad eegto ka faa'iidaysiga harkaysaamaha aad buu liitaa sababo badan awgood kow warshado ma lihin labo dadkeenu wacyigelin ma laha qaabka harkaysaamaha marka inaan iyadana aan horumarino nidaamka ka ganacsiga iyo wax soo saarka harka iyo saamataye leh oo nolosha iyo dhaqaalaha bulshada wax ka bedeli kara dhammaan waxaan wada ognahay in xaqiiqada wax kasta oo ilaahay soo dejiyey macnaha ilaahay soo dejiyey xikmad iyo faa'iido ku jiraan taas oo la rabo inaan si fiican uga faa'iidaysano waxaa habboon dhammaan bulshada ku nool deegaanka Soomaalidu inay kalluunka inay cunaan kalluunka maadaama uu yahay kalluunku wax aad u fiican oo hilib ahaantiisu xagga aad u fiican tahay waxaanan deegaan ahaan leenahay webiyo 4 ah Ganaale Shabeelle iyo Daawa intoodaba waxa laga helaa macnaha khayraad fara badan oo kalluun ah oo dihin oo ilaa hadda macnaha laga faa'iideysan sidaan wada ogsoonayna xafiiskan horumarinta khayraadka xoolaha iyo reer guraagu wuxuu ka aasaasay ilaa 5 gobol iskaashatooyin dhan 40 iskaashato 40 iskaashato oo haatan ku hawlan sidii ay uga midho dhalin lahaayeen ama uga faa'iideysan lahaayeen meelaha macnaha kalluunka haddaba waxa isla markaana loo fidiyey bulshadaasi tababaro loo fidiyey sidoo kale waxa loo fidiyey macnaha nidaamkii doonta u kaxaysan lahaayeen agabyo kala duwan ayaa loo qaybiyey isla markaana waxa sidoo kale la siiyey dhammaan agabyadii kalluumaysiga bulshadani oo markii hore macnaha saan ogsoonahay aan haysan qalab agabyo ku filan oo ay ku kalluumaystaan ayaa waxaan siinay ka xafiis ahaan markii aan abaabulnay shabagyadii bahalladii hookiskii lagu soo qabanayay biriijyo iyo dhammaan agabyada kalluumaysiga oo dhan baan siinay annaga waxaan ugu dhaliyey hindisahan inaan kalluun ka shaqeyno waxaan ugu dhaliyey markii hore waxaanu ahayn kalluumaystay yaryar aan ahayn oo si rafaad iyo silac ku shaqaysta ayaan ahayn kadib markii dawladdu isbeddelkii uu dhacay dawladdii horena runtii ay cadaadis badan ugu saartay hawsha kalluumaysiga oo inaan horumar ay cidhabta naga saartay dawladda dambe waxay ku dadaashay inay wax badan noo qabato annagoo 15 iskaashato ayaa waxaan ku midownay hal dalad oon leenahay daladaasoo matalaysa degmada maamulka magaalada Goday iyo Beercaano iyo degmada Goday iyo Qalaafe oo iskaashatooyinkaas ayaa waxay ku midoobeen dalada kalluunka Shabeelle kadib dawladdu waxay siisay gacan qabad weyn
waxay nagu caawisay gaari fridge ah oo qiimihiisu aad qaali u yahay oo qiimo badan oo ilaa dhowr milyan 1 milyan iyo 2 milyan gaari ay nagu caawisay dawladdu nagu caawisay waxa kale oo lagu caawiyo la siiyay laashash aan ku kalluumaysano waxa kale oo la siiyay talaagado aad u tiro badan dawladdu dadaal badan bay noo sameysay xafiiska xoolaha iyo horumarinta kheyraadka iyo reer guraaguna aad buu noo caawiyay waan u mahadnaqaynaa hada daraasaadkii baan wadnaa ku guda jiraa 3 tiim baan kala diray kala duwan oo 5 webi kala diray si markaas ay ogaadaan aan u ogaano noocyaha ka duwan ee laga heli karo webiyadeena isla markaana markaan noocyahana ogaano waxaan noo qorshaysan inaan baadhno nafaqada uu nooc kasta leeyahay hilibkiisa si markaasi aan ula tartarno suuqa caalamka wuxuu mar hadduu qorayn scientifically uu qorayn oo magaciisa iyo isirkiisa iyo ablaableyntiisa iyo nafaqada hilibku leeyahay aan la garanaynin runtii ma aha mid la tartamayo dunida casriga ama suuqa caalamka mid la tartamayo noqonayo marka taana ku duulanka xafiis ahaan shaqadii waan ku jiraa meel fiican bay noo maraysaa sanadkan dhamaadkiisa ilaa maskar inta laga gaarayo waxaan rajaynaynaa inaan paperka soo saarno oo aan shaacino xafiisyada dawladda hay'adaha donorska federaalka inta aan u shaacino inuu noqdo runtii mid iibsamay oo gadmin noqdo hadda heer waxaan gaarnay markii hore inaan ka gudubno gararasadii oo aan intaan kor u fikirno inaan furano hodeel lagu cuno kalluunku faa'iidooyin badan buu leeyahay faa'iidooyinka badanka uu leeyahay waxa ka mid ah qofka kalluunka cuno cudurro badan buu leeyahay ka badbaadiyaa noocyada kalluunku ee webiga laga helo aad buu u buuxaa kalluun badan baa laga helaa waxaa laga helaa ugu yaraan 11 nooc oo kalluun ah webigan iyo hadda go' iyo shabeelle laga helaa qorshahan lagu horumarinayo habka casriga ee kalluumaysiga ayaa ah mid waqti xaadirkan laga wada 5 gobol oo deegaanka iyadoo qalabka iyo farsamadaba uu xafiisku ka taageerayo kalluunku waa khayraad dihin Ilaahay noo manaystay deegaankan shan webi Ilaahay khayraadka dihin webiga ku jira aan u baahnayn kharash badan iyo dib badan loo maro dadkeena wali meen ka faa'iideysaneen waana khayraad runtii muhiim ah waxaan dhihi karaa waa hilibka u tayo badan oo caafimaad fiican nafaqo ahaan iyo badbaadada fiican ma garan cudurro badan oo ka hortagayo khayraadka dihin ee leen anoo ka duulana xafiisku wuxuu culays ka saaray soo ka duulay qorshihiisa miisaaniyada 2010 wuxuu target ka dhiganaa culays saaray inaan dadka fahansiino barnaamijka wax soo saarka casriga ee kalluumaysiga waxaan target saaray 5 gobol oo qaadnay model at least inaan bal fahansiino oo ka jabino fikradan dadku ay aaminsan kalluunka inuu hilibkiisa la cuni karin ama kalluunka inuu at least wax soo saar u lahayn 5 gobol baan ka fulnay mashruucan oo ay ka mid yihiin gobolka Shabeelle gobolka Liibaan gobolka Erar gobolka Nagab gobolka Afdheer 5 gobol baan ka fulnay 5 gobol waxaan target dan sii saaray degmooyinka Itoobiya ka maraan haddana waliba waxaan culays sii saaray degmooyinka at least fahansan wax soo saarta haba yaraatee marka dadkaasi maxaan siinay tababar baan siinay garaadada aqooneed baan korinay 2010 sano baan garaadada aqoon baan korinay waxaan u dhisnay guryo waaweyn oo ay ku kariyaan kalluunka sidoo kale waxaan u qaybinay agabkii casriga ah ee u sahlay kalluumaysiga oo ay ka mid yihiin gawaariyo freezer oo izu ah oo nagu talagalay inay ku suuqeeyaan wixii ka tambata magaalooyinkooda inay caasimadaha wadanka ay ka mid tahay ay keenaan sidoo kale waxaan u qaybinay doomo casri ah oo speedkooda aad u sareeyo oo 8 doon ah oo kuwa u dambeeyay latestiga kuwaas oo qaada 50 kintaal halkii marba wax badan hal mar soo dabi kara iyo waqti badan aan ku qaadanin sidoo kale waxaan u qaybinay qalabkii casriga ah ee sida shabaqii casriga ah ee lagu xaysanayay qalabkii lagu jiriyay markii la karinayay qaybkii lagu karinayay waxaan kale u qaybinay faranjiiro fara badan baan u qaybinay goobahaas targetkuna waxa weeyaan in dadku ay fahmaan kalluumaysiga faa'iido ilaahay saad ogtiin kalluunku waa khayraad dihin waana shay muhiim ah oo runtii bulshada dhaqaalaha wax ka bedeli kara waa shay kharash badan ku baxaynin dadku way ku adag tahay in xoolahooda ay gataan sida geela looda ariga sabab marka qofku la jecel dareemayo waxa laga yaabaa inuu gaarsado laakiin hadduu webiga ku turto shabaqa ama doonta uu ku turto oo 100 xabba ka soo kala soo baxo kalluuna waxaan dhihi karaa neef loo intuu ku iibsan lahaa lacagteedu heliya marka dhaqaalaheedii uu korayaa baan dhihi karaa sidoo kale kalluunku wuxuu idin sahlayaa nafaqadii ciyaalka iyo dumarka urka la nafaqadoodii iyo dadka weyn nafaqadoodii kor u qaadaya qaas dadkan loo yaqaan dadka vulnerable ama dadka nugul kor buu qaadaya sidoo kale kalluunku wax cudur ma keeno hilibka cad baa loo yaqaanaa faa'iidooyin badan buu leeyahay
wuxuu kaloo kalluunku leeyahay macnaha borotiinna aan laga helin hilibka kale oo ay ka mid yihiin omega 3 fatty acid kaasoo muhiim u ah koritaanka ciyaalka iyo hooyada uurka leh koritaankeeda iyo maskaxda sidoo kale wuxuu leeyahay amino acid 8 nooc amino acid oo aan laga helin hilibada kale casaanka ah kuwaasoo runtii koritaanka jirka iyo difaaca jirka qayb weyn ka qaadanaysa marka kalluunku ahmiyad badan buu leeyahay waana hilibka kaliya caalamka la isku raacay inuu caafimaad qabo oo wax xanuun aan lahayn marka bulshadana waan ku baraarujinay runtii iskaashatooyinka door fiican bay ka ciyaareen hadda maalin dhaweyta waxaan soo xaray ka soo jarray iskaashatooyinkii gobolka Shabeelle dalada ay ku midoobeen oo intay dhaqaalahoodii ay koreen hotel weyn furatay maamulka magaalada Goday ka furatay hotelkaas oo runtii aan rajaynayno inuu wax badan ka bedelo hab nololeedka iskaashatada iyo sidoo kale dhaqaalaha bulshada iyo sidoo kale inuu wax badan ka bedelo fahanka bulshada ay ka qabta kalluunka sidoo kale waxaan rajaynaynaa hotelka weyn ee xariga laga jaray inuu sidoo kale soo kordhin doono hoteello fara badan oo kale dad badan ku dayn doonaan sababtoo wax aad loo daranay weeyaan sidoo kale dowladda iyadana gobolka Liibaan runtii iyagana dadaal badan bay muujiyeen mashruuci kalluunka ee ku tababaray qalabkaasina ka mar dhaliyay runtii iyagana aad baan ugu mahadcelinayaa shaqadooda halkaas wadan baan leeyahay kalluunkana runtii wax muhiim weeyaan sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelinayaa maamulada gobolada iyo maamulada magaalooyinka ee runtii ka qayb qaatay garab istaagay hirgelinta iyo dhisidda iskaashatooyinkan xafiiska xooluhu asaasay iyagana aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay dadaalkiina halkaas wada taas aan iyaguna leeyahay aad u mahadsantahay furitaanka hotelkan cuntada kalluunka oo markii koobaad laga furo magaalada Goday waxaa xusid mudan 15 iskaashato oo ka howlgala maamulka magaalada degmada Goday degmada Goday beer caano iyo degmada Qalaafe inay ku midoobeen dalada Shabeelle daladaas oo runtii midho dhal fiican ka keentay ama natiijo fiican ka keentay wax soo saarka kheyraadka kalluunka oo maanta runtii aan aad ugu faraxsanahay inay fureen hotelkoodii koobaad oo waxa lagu cuno oo kaliya uu yahay kalluunka haddana horteena uu ka muuqdo kalluunkii oo noocyo kala duwan oo saamballa ay ka soo qaateen si ay ugu soo bandhigaan bulshada aad baan ugu faraxsanahay waxaan rajaynayaa in wax soo saarka kalluunka uu qayb ka qaadan doono nutritionka ama maxay ahayd quudinta inuu cuntada nafaqaysan uu ka qaadan doono in uu magaalada ku soo kordhin doono adeeg hadda ka hor aan ka jirin oo ah kalluunka meelo gaar ah oo laga cuno alxamdulillahi rabbil aalamiin wabiga Shabeelle waa wabiga mara dhammaan toddoba degmo ayuu maraa nasiib wanaag waxaa u helay degmada beer caano degmada Goday iyo Tanqalaafo inay ku midoobaan 15 iskaashato oo kalluun iyo maamulka magaalada ku midoobaan alxamdulillahi rabbil aalamiin wada arataan productivity ka soo baxay wasaar ka soo baxay wada arataan waxaa marka aan ku dhiirigelinaynaa dhammaan bulshooyinka gobolka Shabeelle in ay ka faa'iideystaan kalluunkan oo noogu fadhiya lacag la'aan oo ilaahay lagu galadaystay sida ilaahay beeraha noogu galadaystay biyo qulqulada noogu galadaystay in laga faa'iideysto kalluunkan xil walba la helayaa subax baa la helayaa habeenkii baa la helayaa duhurkii baa xil walba la helayaa waa meerxawiyaan wax ugu muhiimsan oo ilaahay bilaami ku manaysto ay qayb ka yahay martida ugu horeysa ilaahay ku martaqaadayo jannadan waa maxay في كبد الحوت وملايقة ويان ملايقة ويان ماشي نزول هذا هذا وإلى مرتقات كيسا إحنا جانا مرتقات أيو وكلونك سيدا ودي حنقول لنا لما عملوا شوينتا ديان كودان خاصة جودي أنا كود أيضا دلنا المدوبي يكون مدوبي شباب وما سنتين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سرنتا إسكاشتدن aad baan u garab istaagaynaa waana invitaynaynaa maanta iskaashtadan hadda ka hor bay sidan oo kale inay wax qabtaan niman isku dayeen waxoogaa way naga tabalaashtay annagoo aad u baahan oo u aragnay khayraadka deegaanka wanaaggiisa iyo nimcada ilaahay inagu galladaystay oo meel walba looga yimaado yay iskaashtadaas hadda ka hor shaqada wadi weyday haddana dhallinyaradan maamulka magaalada iyo labada degmada Goday iyo degmada Beer Caano iyo degmada Qalaafe yaa abaabulkan iyo haddana qorshaha noo diyaariyey waxaan u sheegaynaa cid kasta oo safar ku timaada inay ka qadayso hotelkan odayaasha weliba door laxaad leh bay ku leeyihiin marka koowaad u mahadcelinayaa xafiiska horumarinta xoolaha oo runtii waxa weeyaan annagoo ahayn
bulsho danyar ah oo aad u dhibaataysan oo mataqaanaa aan wax ruqmaalasho annagoo ah noo sameeyey shaqo abuurkan ballaaran xafiiska marka koowaad waa mahadnaqayaa marka labaad waxaan u mahadnaqayaa dowladda deegaanka oo dhan ee ku fikiraysa dhallinyarta iyo ummadda inay shaqo abuur badan ay la sameeyaan oo si ay ummaddu uga baxdo saboolka iyo faqriga waan u mahadnaqayaa dowladda maadaama kalluunku uu yahay wax aad u muhiim ah bal hilbaha kale macnaha xoolaha muxuu kaga duwan yahay waana si fiican aad u fahantaan ayaan rabaa haddii la yidhahdo waxa weeyaan xagga dheefshiidka wuxuu ka fudud yahay dhammaan hilbaha kale xoolaha in leenahay buu ka fudud yahay oo sababtoo ah haddii aad cunto dheefshiidkaaga markaa aad kuma culaysinaya tusaale ahaan haddaan soo qaadano hilibgeelkoo kale wuu ka culus yahay hilibka kalluunka waxaa kaluu ku yar duxda waxaa la yidhaha duxda ku yar low cholesterol weeyaan waxa uu ka jaban yahay hilbaha kale ee dhammaan xoolaha lagama qaado cudurro badan oo laga qaado hilibka xoolaha xaddigaad cuni karto kama cuni kartid hilbaha kale ee xoolaha odayaashu way u baahan yihiin ninka daaloo dhan baa u baahan waxaan leenahay isku abdeed gareeya nin walowba halkaa imow aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxa aad aragtaan ee nimcada ah hilibka geela aad aragteen ee ilkaha idinka geliye adaygiisa aad aragteen iyo hilibka riyaha idahiina waaba lagu jiraday kaa un baan baranee balkanna aynu baranno oon aragno soo dhowaadaan idin leenahay deegaanka soomaalida waad u jeedaan waxa nimcada hoos taalla waad u jeedaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin fitamiinada ku jira ayaa ka badan kuwa ku jira hilibka kale xoolaha waxa qaarkiis ayaa hurdada keena macnaha kalluunka qaarkii markaad cunto hurdo badan ayaad seexanaysaa waxaa kaloo laga helaa nafaqo badan sidaa awgeed oo u fiican caruurta iyo hooyooyinka waxaa kale oo uu mar kasta macnaha ka qayb qaataa koritaanka maskaxda wadnaha maqaarka iyo dhammaan qaybaha kale jirka waxaa ku jira borotiino aad uga sarreeya ka qayb qaata dhisidda iyo jirka macnaha ka qayb qaata ayaa sidoo kale jira waxa kale oo uu leeyahay waxa la yidhaahdo marine omega fatty acid oo uunu hilibka kale lahayn taas oo u gaar ah hilibka macnaha oo ka hortaga wadna xanuunka iyo waxyaabaha laga qaado sidoo kale waxa uu leeyahay oo ku jira selenium waxa la yidhaha selenium taasi waxay maado muhiim ah oo ka qayb qaadata weeyaan la dagaalanka iyo wixii nadiifinta chemical processka jirka bini'aadanku marka uu dhiig wareegayo hilibka macnaha kalluunka waxaa ku jira waxyaabo nadiifiya macnahaas mustaqbalka waxa weeye qorshaha xafiiskan u yaala marka hore waa in isticmaalka kalluunka ee bulshadeena kor loo qaado wey waa horta ay bulshadu ay dareento hilibka kalluunku inuu yahay mid caafimaad ahaan faa'iido u leh mid ka jaban hilibiyada kale ee xoolaha ka jaban oo ka raqiisan marka sidaa darteed bal wacyiga bulshada ee cunitaanka kalluunka inuu kor u kaco weeye marka labaad waa inaan sii ballaarinaan doonaynaa iskaashatooyinka ku hawlan wax soo saaridda kalluunka ilaa mustaqbalka aan ka gaadhsiino inaan warshado yaryar u samayno warshadayno oo maaragtay isagoo xidhxidhan suuqa lagu iibiyo sababtoo ah resourciga waan haysanaa kalluunka waan haysanaa haddaan isticmaalno nidaamkan small industry-ga oo yani warshado yaroo backet garayo loo helo hadda waxaan kan inagu aan idhaahno saardiinka dadku daasada yarta ay soo qaataan oo kale waa kalluunkeena oo kale un weeye marka kalluunka webigeena ku jiray in maaragtay aan mustaqbalka warshadayno oo deegaankeena si fiican looga isticmaalo bulshaduna wacyiga ah isticmaalka kalluunka inay uu kor u kaco haddii aan la yidhaahdo ta kale waxaan jeclaan lahaa iyadoo lafteeda anigoo ka faa'iidaysanaya soo booqashadiinan inaan ku dhiirigeliyo maalgeliyaasheenna ama dadka hantilayaasha ah waxa weeye waa ilaha ama fursadaha dhaqaale ee bannaan weeye ganacsi ee bannaan bulshadeenana wax ka tari lahaa weeye marka sidaa darteed in ay ku baraarugsanaadaan in warshadaha yaryarka ah ee kalluunka process garayo kaleeto inay maaragtay keensadaan isla markaana iskaashatooyinkana ay noqdaan kuwii quudin lahaa ee iyaga u keeni lahaa marka guud ahaan bulshada deegaankeena soomaalidana waxaan jeclahay inaan aad ugu baraarujiyo aan isticmaalno hilibka kalluunka kalluunka soo suuqlaan ma baysaninba oo kalluunka suuqiisa aad buu u badnaa laakiin dadku inay fahmaan oo wax soo saarkiisa ay soo qaataan ayaa ahaa runtii mid liitay hadda goboladan aan taarget ka saaray
runtii faham badan baa ay ka qaateen qaarkood gawaari baan u qaybinay kuwa gawaarida aan u qaybinay freezerada ah waxaan ugu talagalnay inay suuq ku geeyaan meelaha u dhow sida dhagax buur qabri dahar jijiga harar dirdaba ilaa dhasow inay geeyaan marka runtii suuq aad buu jiraa fahamkan baa nagu yar haddana waxaan rajaynayaa wax badan inuu macnaha uu ka bedeli doono agabkii iyo tababarada aan bixinay inuu ka bedelo iskaashatooyinka khayraadkii kalluunkana deegaankeena inuu suuq soo geli doono maalmaha gudahooda ayaan rajaynayaa hilibka kalluunka ayaa ah mid cilmi ahaan lagu xaqiijiyey inuu ka tayo badan yahay hilibyada kale ee la isticmaalo marka laga eego dhinacyo badan hadda iskaashatooyinkan toos waxaa uga faa'iidaystay 245 qof ka faa'iidaystay toos si dadban waxaa uga faa'iidaystay 2,000 qof si toosa iskaashatooyinka si toos uga faa'iidaystay waa 245 si dadban dadka indirect beneficiary loo yaqaano waxay dhanyihiin 2,000 qof runtii noloshooda wax badan ma ka bedelay dadkan markaad eegto meeshaan ka soo qaadnay dad waxa ay runtii aan noloshooda aad u liitay laga yaabo maalintii intay webi ku tuuraan xadhig yar hal xabba soo helay ama waayi maalintii waayaan qadiib ahayn runtii laakiin maanta heer waxay gaareen ay saving samaystaan noloshooda wax ka bedelaan hoteelada waaweyn iskood ay furtaan xafiiskana ay ku invite gareeyaan hoteelada in xadhig uga jiraan runtii marka runtii aad baan u farxsanay dadka inay markii wax la fahansiiyey inay wax qabsadeen runtii shaqo abuur badan mashruucan uu sameeyey iskaashatooyinka noocan oo kale iyo dalada noocan oo kale ay kusoo badan doonaan deegaankeena isla markaana gobolada kale iyo deegaanada kale ay u suuq geyn doonaan waxaan mahad gaara u celinaynaa xafiiska khayraadka xoolaha oo isagu mar had iyo jeer la garab taagan taakulayn hadday noqoto dhinaca qalabka oo freezerada hadda horteena ka muuqda ay yihiin kuwa isagoo ku caawiyey haddii ay yihiin dhinaca doomaha lagu soo kalluumaysanayo iyo shabagyadii iyo qalabka la midka haddii ay noqon lahayd gaarigii lagu soo keeni lahaa oo maxay qaboojiye wata oo ilaa jigjiga lagu geyn karo xafiiska mahad gaar ayaan u celinaynaa sidoo kaleento waxaanu ku dhiirigelinaynaa iskaashatooyinka kale ee iyagana jira in ay dalladan kusoo biiraan ama dallada kale sameeyaan wax soo saarkooda dhanka kalluunkaana ay kor u qaadaan SRTV oo had iyo jeer la garab taagan in wax soo saarka iskaashatooyinka iyo dalladaha kala duwan ee ku howlan wax soo saarka beeraha iyo kalluumaysiga had iyo jeer soo bandhiga bulshadana fahansiiya aad baan asna ugu mahad celinayna maasantii si aan u ogaano oo macnaha u xaqiiqsano nafaqadiisa borotiinadiisa iyo faatiskiisa waxyaabuu ka kooban yahay oo dhan hilibkii baa lasoo qaadayaa hilibkii marka lasoo qaado jaamacadda haramaya anagoo la kaashana ayaan doonanaa haddii la yidhaahdo inaan baadhno oon si fiican u baadhno si guud waxaan ula dardaarmayaa iskaashatooyinka ku howlan horumarinta kalluunka gaar ahaan 8 degmee hadda uu mashruucan ka shaqeeyo waxaan leeyahay caqabado badan oo jiray baa jira macnaha annaga xilligii aan barnaamijkan hirgelinay caqabadahaas si aan uga gudubno waa in marka ugu horeysa ay bulshadu diyaar u noqotaan oo ay ka faa'iidaystaan qalabka loo qaybiyey talabaad een farayaa waxa weeyaan sidii aan ku wada galnay barnaamijkan markaan hirgelinay heshiis baan kala qaadanay ahayd dhammaan gobolada iyo degmooyinka uu mashruucan ka shaqeeyo ogyihiin heshiiska aan kala qaadanay 6 bilood baan qabsanay ahayd 6 bilood waxaa loogu talagalay agabyada iyo qalabka la siiyey inay sidooda uga faa'iidaystaan haddii ay ka faa'iidaysan waayaan qalabkaas iyo agabkaas la siiyey waxaan xafiis ahaan iyo gobol ahaan iyo degmo ahaanba ku heshiinay in goobtii shaqa ka socoto la geyn doono qalabkaasi maxaa keenay waxaa muhiim ah marka bulsho qalab loo geeyo ee wixii la dhiso inay shaqeeyaan macnaha bulshadii oo si fiican u shaqeeyaan markaas waxaan ku dardaarayaa goobaha degmooyinka gaarkan ilaa hadda shaqadan dhaqaajin inay shaqadaas si fiican u dhaqaajiyaan tallaabada xigta waxa weeyaan kalluunka deegaanka inaan ku fidiyo oo aan gaarsiiyo degmooyin gobolada kaleeto jigjiga dhexbuur iyo qabri dahar dhammaantood inaan gaarsiiyo kalluunka oo aan gaarsiino ayaan ku fikiraynaa hindisaha waa taa weeyaan guud ahaan xafiisku wuxuu ku howlan yahay sidii bulshadeenna kor loogu qaadi lahaa dareenka ah inay isticmaasho khayraadkan aan dayacnay ee kalluunka oo run ahaantii ah yani waxa ugu qaadsanaya adduunka laga cuno webiyadeena kalluunka ku jira haddii sida uu yahay looga faa'iidaysto yani kumanaan qoys oo bulshadeenna abuu quudin karaa sidaa darteed waxaa weeye waa source inaga maqan weeye inaga ciyaalkeena oo kale waa ka darteen malnutritionka ku badan wuxuu wax ka taraa oo kaleeto haweenka uur kale oo kale hadday isticmaalaan waxa uu wax ka taraa ciyaalka oo kale haddii la siiyo dhanka maskaxda oo kaleeto ay kiyugooda kor buu kacada la yidhaahdaa marka sidaa darteed kalluunku faa'iidooyinkaas uu leeyahay iskaashatooyinkaasna hadda way bilaabeen ugu hormuudsanay iskaashatadan gobolka Shabeelle oo run ahaantii ka faa'iidaysigiisii bilowday sidaan ognahay hadda dad ka qaataa jiro macaamiil ah waxaa kale oo ay sameeyeen hadda la soo xariga laga jaray
maqaaxi lagu diyaariyo cunitaanka hilibka kalluunka marka yani waxaan leeyahay waa source weyn oo sidan maaragtay bulshadeenna haddii ay fahanto run ahaantii ahaan lahaa cunto qaali oo caafimaadka bulshadeenna kor u qaada yani food security-ga laftiisana wax weyn ka qabta